Welcome back. Kusoo dhawaada mar kale iyo channelkani waanad ku mahadsantihiin booqashada aad soo booqasheen channelkan. Waxaan channelkan inta badan dadka ugu soo gudbinaa xirfado badan oo ku saabsan isticmaalka computerka. Maantana qaybtan waxay ku saabsanaan doontaa xirfado yaryar oo gaagaaban oo la doonayo insha Allah in loogu faa'iideeyo dadka u baahan, dadka siiba dadka aad u isticmaala Excel, hay'adaha iyo daatooyinka iyo xogaha faraha badan ee intaasoo malaayiin oo document oo kale ka shaqeeya ay anfici doonaan. midda koowaad aan ku bilaabayaa midda koowaad waxa waaye Excel markuu sidaa kuugu furan yahay bogga koowaad uu sidaa kuugu furan yahay markaad fiiriso lambarada halkan kaaga taxan lambaradaas midka u hooseeya miyaa taqaanaa ilaa hadda maxaad is leedahay ka ugu hooseeya meeqa god camal macnaa tiradii inta god ee hoos ku jirto ka turjubaanayaan tiradan laakiin midka ugu hooseeya miyaa taqaanaa ma isweydiisay weli midka ugu hooseeya ma isweydiisay sida lagu tago ama sida looga soo noqdo godka ugu hooseeya taas iyo ku saabsanaanaysa xirfadda koowaad marka waxa weeye waxaan isku dayaynaa godadkan godka ugu hooseeya inaan tagno sida ugu dhaqso badan ee ugu fudud ana kala soo laaban marka waxaan sameeynaa waxa loo isticmaalaa marka waxaan isticmaalaynaa arrows iyo waxaan isku isticmaalaynaa control so basically labadaas isla isticmaalaynaa control iyo arrow keyboardka isticmaalaynaa qaybta waxaad arkaysaa falaarada muxuu ahaa dhinaca midigta falaaro afar ku yaalo laba kor iyo hoos oo kala jeedo iyo laba midig iyo bidix oo kala jeedo controlkana dee dhinaca bidixda keyboardkaaga ayuu kaaga muuqanaya marka Excel markaan sidaa u furto god koowaad A1 falaarta markaa sidaa mouse u saarto waxaan rabnaa inaan tagno godka ugu hooseeya Excel waxaad moodaa markaad hoos u socoto inay soo dhamaanayninba oo aad u fog yahay marka laakiin waa la tegaysaa si fudud lagu tegi karaa marka waxaan sameynaynaa waxaad taabanay adoo halkan mouse ku joogo ama meesha doonaa ku joogo laakiin haddana halkan inoo joogo control waxaad isla taabanaysaa falaarta dhinaca midigta ujeeda hoos ujeedo falaarta dhinaca hoos eegaysa iyo control isla taaban laakiin control marka hore taabanaysa control sida waxaad falaarka taabanaysa hadda waan taabtay eeg waxaa ka soo baxay halkaa godkaas waa godka ugu hooseeyo warqadan hadda kuu furan ama boggan hadda kuu furan Excel godka ugu hooseeya wax ku qoraysa waa kana waxa weeye 1,000,000 iyo adigu 48,000 iyo dhowr boqol oo god weeyaan waad qiyaasi kartaa 1,000,000 oo god iyo hoos uu ku jira marka hoos aad timid 1,000,000 oo god baan hoos hadda u soo galnay marka wixii kala sare naga jiraan halkaas sare naga jiraan marka sidaan kaga noqonaynana waxa waaye lidkii hadda umaan sameynaynaa waxaan leenahay control arrowga macnaha filaarta sare fiirinaysan aadaynaa aan taabanaynaa control arrow the top halkii aan ku laabanaynaa marka okay maxaan sameynay waxaan dhahnay control plus waxaan isku darnay right arrow bottom arrow markaan kasoo laabanaynayna maxaan sameynay waxaan isla taabanay control iyo waxaan isla taabanay control plus waxaan isla taabanay up arrow okay intaas aan sameeyay saas kaga soo noqonay marka tan kale aan u gudbaynaa welcome back waxaan u gudbaynaa kusoo dhawo qaybta labaad waxay ku saabsanaan doontaa haddii aan aragnay qaabka godka koowaad looga tago oo godka ugu hooseeyo loo tago oo sida ahaa iyo haddana loogu soo noqdo godka sare haddana waxaan isku dayaynaa inaan aragno godka ugu inta jiro xaggaan ugu dambeeya dhinaca midig inaan tegi karno haddana kasoo noqon karno isla sidoo kale anoo halkaa joogo waxaan taabanayaa control iyo falaarta dhinaca midigta eegayso kan taabto waxaa ii soo baxayo halka meesha u dambeysa marka godka u dambeeya dhinaca midigta ah meesha ku dhamaanaya boggan uu ku dhamaanaya waxay noqonaysaa XFD halkaas ay noqonaysaa marka waad qiyaasi kartaa haddii imtixaan oo Excel oo shaqo Excel isticmaalkeeda oo kale aad u galayso interview u galayso waxa laga yaabaa in lagu dhaho the right side of Excel sheet the last cell on the right side magacaw which is XFD ay noqonaysaa marka kadib ama the cell-ka u dambeeya oo muxuu ahaa xaggan hoose magaciisa sheeg so kaas iyo kan meesha iskaga dhacayaan marka waad qiyaasi kartaa meesha ugu dambeyso hadda halkan anoo joogo haddaan controlka intaan taabto haddana filaarta u hooseysa aan taabto
fiiriya meeshan tagay maxaan tagay halkan aan tagay so cellka aan tagay waxa waaye XFD 1,048,576 waa halkaas waxaad qiyaasi kartaa marka intuu la dhan yahay Excel balaarkiisa iyo waxa ku jira halkan waad qiyaasi kartaa. Welcome back. qaybtan waxaan iyadana xirfada kale xigtaan waxaan rabnaa inaan leemankan caadiga Excel inaan iska qarino oo leeman kale anaga aan leena isticmaalno bis aan isticmaalno grid lines leemankan grid lines ka sida loo qariyo grid lines ka hadii rabto inaad qariso basically waxa sameynaysaa laba shay oo ku qarin kartaa hal shay waxa sameyn kartaa color aad ku qarin kartaa color aan ku qarin karaa waxa sameynaa marka calaamada halkaas marata halkaas aan qalin geynaa halka hadaan ku dhufto boggan weyn oo Excel halka milyan ee god ah oo dhan wuxuu noqonayaa hara koraya halka hadaan ku dhufto dhag hara korayo soo halka marka hore sida uu sameeyo waxaan soo qaadanayaa color halkan ka soo qaadanayaa isay color kaasan soo qaataba tusaale ahaan أنا كان عايز كسوقات وان grid lines كونا سهرة كونا سهرة محاوى borders border كجرا مركا حالها مركا أنا هذا X كي وجرا أو حكتان واستعمال ربو يعني color كقاعدة يا كدي أنت سهل كنا إيمانا يا color كان no feel اللي وكقاعدة يا أنت color كلاته أو كان هذا صار كدوجن يعني صارنا يا تسالة كاسو كلا صارنا يا بس ka marka qaabkaas ay noqonaysaa qaabkaas waad u qarin kartaa grid lines-ka kalka doonta ku qarin kartaa qalar caadi wax loo soo qarsoomayaan grid lines-ka sidaas ku qarsan karaan qaabka kale aad ku qarin karto waxa waaye waxaad ku qarin kartaa oo kale grid lines-ka si caadi ayaga dhanba aad dadka uga saaraysaa waxa sameynaysaa waxa leedahay halkaas ka imaanay view Excel view inaan iska imaanaya view markaan imaado grid lines halkan qoran leemankan aad arkaysaa halkan ka muuqdo Excel oo boxyada iyo godadka ka dhigayba wax kuwan ma falaartasan ka qaadaya waxaan ka wadaa tigta ka qaadaya saytaanka ka qaadaya markaan ka qaado way tagayaan fiiro ka meesha caadiis ka noqon laakiin boxyada wali way sii jirayaan oo waa isticmaali kartaa caadi way sii jirayaan laakiin borders ko helayaan borders ka adigu aad meesha soo gelisay way harayaan ayaga way harayaan iyagu meesha way ka baxeen marka qaabkan oo kala taad muxuu ahaa aad u qarin kartaa qaabkaas qoran kartaa halkaas ku soo go'aynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.